waan islaamay walaalayaal meel walba joogtiin kusoo dhawaashaa intaan aan waxaan ku hadlalaa u gudub gelin waxaan rabay halkan inaan iga sheego walaalayaal clip waxaa jirtaa aan hadda ka hor soo galay hooyadii ka duubay cod ayadoo oynayso YouTube soo galiyay clipkaas waxaan isku dayayaa inaan YouTube oo dhan aan ka wada saaro balse anigoon public ka dhigin kana igu jiro aan public ka dhigin kama saari karo YouTube leeda kale kama saari karo marka fadlan haddii aad aragtiin inaan hadda private yahay public inaan ka dhigo ha daawanin iska dhaaf waan baryaa halkaas markaan ka gudbo dad badan ay soo wacaan maanta ilaa shalat soo wacay kalbiyo badan waxaa jirta aan ka saaray YouTube lay waxay leeyihiin niyo maxaad inoo sugaan warning inoo siin waysay strike baan ku qabtay maxaan warning inoo siin waysay saaxiib aniga markii aan dhahay waan soo laabtay haddii aad ila socotay clipkii labaad ku xigay mise clipkii ku xigay ayaan waxaan yiri waan baryayaa fadlan nin walbo YouTube leeyahay oo YouTube lay clipyada aan leeyahay dadka faraxsan ahay clipyada hooyadii ay oynayso ka saara YouTube-ka halkaas ayuu ku jiraa hal bil ka hore oo aniga aan baryayay dadka marka Soomaalina waxaan u arkay badidooda markaad barido waxay ka arkaan jiljilaa iyo adiga inaad waxba aad tari karin camal marka hadda waxaan sameynayaa anigoona baryan baan nin walba YouTube-ka clip waan iga haysto oo hooyadeeda duwayso channelkiis aan ka xirayaa hataa ma dhahay iga saar isla markii immediately ayaan ka xirayaa channelkiisa taasoo waa iga go-nin waa hadda markaan clipkan aan dhammaysto ka baxo ayaan galayaa hoosha ayada runtii asalkayga hore ma aqaanin si loo sameeyo laakiinse hadda waan bartay haddana waa sidaan u bartay nin walba aan soo qaato ugu qoran tahay qaniiskii iya hataa waxay dadkan hadda soo wacay WhatsApp email intay soo direen dhahan WhatsApp niyo inagala soo xiriir waxa ugu qoran kelibada ay qaateen ninkii qaniiskii ahaa hataa way quuri waayeen inaanay magacayga meesha ku soo qoraan ninkiis deeqo way quuri waayeen markaas aniga WhatsApp intay hoos igu soo qoraan leeyahay maxaad strike inoogu qabatay WhatsApp inagala soo xiriir ma yaani WhatsApp kale ma soo xiriiray strike markan kugu qabtana tadawur bari aan warning ku siiyay oo warning kaas wuxuu yahay tadawur bari inaad clip ka saarto haddii aad ka saari waysana channelka ka xirmayso marka adiga hooshas aday ku taala haddii aad ka saarto iyo haddii kalaba laakiin tadawur bari warning ayaan ku siiyay taas waxaan ku siiyay degniin ahaan marka aniga inaad WhatsApp hoos igu soo qorto email kooda dhahdo niyo channelka maxaa strike inoogu qabatay hayli imaan sheekadaas camal oo aniga markaad clipyadeeda soo qaadatan oo ninkii qaniiska ahaa aniga magac baan leeyahay magac baa meesha igu qoran hoostaas igu qoran magacayga haddaad isticmaali wayso ninkii South Africa jooga taa waad dhihi kartaa inaad views ku hesho ninkii qaniiskii ahaa aniga aan meelahaasna aad igu qaadato magacayga aad ixtiraamin aad iyo aad ayaa aan waxaan aqsanahay waana wada xiray wixii channel aniga aan clip igu jiro clipkayga haysto haddii aan taa ka gudbo run ahaantii saas uma soo gelin maanta hanaaqaas iyo buuqaas uma soo gelin maanta South Africa waxay tahay waa maalintii haweenka ayay u dabaaldegayaan marka waa holiday inkastoo anaka aan shaqeynayno balse waa national holiday runtii xaaladoo dhan aan ku fikiraya haweenkeena Soomaali horta meel walba joogto haddii aad clipkan daawato haddii aad taageerinin haddii aad taageerayso haddii aad hanaaqsan tahay iyo haddii ay hanaaqsaneen laba gooriga horta waxaan ku leeyahay hambalyo haddii aad haween tahay runtii intii anaka wadankeena burbursanaa oo
qaxarka iyo waxyaalahaas jiray dadkii haayay oo tiirka haayay waxay ahaayeen haweenkeena Soomaaliya ilaa ay haddana way hayaan runtii haweenka Soomaalida ma ahan kaliya kuwa baraha bulshada ka muuqda oo dagaaltamayo oo magac leh kuwa waxaa jira underground oo la arkaynin oo har iyo haween saa u shaqeynaya ma ahana taa adiga haddii aad magaceeda aad dowladda ka soo jeedo mise aad movement aad u dhaqdhaqaaqaysid kaliya maahan haweenkeena Soomaaliya haddii aad mar aad guriga haween subaxdii intaad haweenba haddaad tahay oo subaxdii intaad soo kacdo aad quraac aad u karinayso ama ilmahaada ama odagaaga ama walaalahaaga iyo runtii waxaa tahay boqortooyo oo madaxa in la saarta u habboon waxaana rajayn lahaa Soomaaliya inay aqoonsato maalinta haweenka oo markaa iyada sidan camal ay national uga dhigaan holiday si loogu dabaaldego dumarka ina hayay haddana ina hayo haddii aan Soomaali nahay intaas ma rabo inaan soo galo walaalaha haddii aad dumar tahay oo Soomaali madaxaas ayaan iga saaran tahay waan ku salaamay till next time bye